nin yahuudiya ayaa yidhi aqalkayga waan gadayaa waan iibinayaa meeqaad ku gadaysaa baa lagu yidhi wuxuu yidhi 120,000 oo dirham baan ku gadayaa markaasaa lagu yidhi 20,000 waa macquul laakiin 100,000 dul saarata maxay tahay lagu yidhi wuxuu yidhi 20,000 waa aqalka qiimihiisii waa runtiin laakiin 100,000 waxa weeyaan waa darisnimada aad la darsaysaan cabdullaahi ibnu mubaarak baa daris la ahay markaa darisnimadiisa ayaan ku iibinayaa 100,000 buuri 100,000 maadada dadku maanta ay isku qadarinayaan hebelkii lacagta badnaa hebelkii fooqa weyn halkaa ka dhistay hebelkii warshadaha badan lahaa hebelkii darajada weyn lahaa hebelkii gawaadhida waaweyn lahaa hebelkii dukaanada waaweyn lahaa hebelkii bakhaarada waaweyn lahaa maxaa ka dambaysa qabrigiisii yaraana waa kan baa ka dambaysa kullu alladii fawqa turaabi turaab waxaan arlada dul yaalla waa ciid ciidna waa ku noqonayaan dhulku waa ciid aqaladu waa ciid gawaadhidu waa ciid adigu ciid baa tahay lacagtu waa ciid dharkaagu waa ciid cunadaadu waa ciid daaruhu waa ciid qusuurtu waa ciid aawe dadkii adduunyada soo camiray aawe inbaa soo galay magaalada markaasuu nin sheekhu argo wuxuu ku yidhi magaaladii camirnayd i dhexgee magaaladii camirnayd ee dhisnayd baan rabaa in lay tusee magaaladana waan ku cusubahay igee ibraahim al-adham baa kaxeeyey allah u naxariistee magaaladii camirnayd baan rabtaa miyaha isoo raac uu kaxeeyo magaaladii buu ka saaray markaa buu yidhi war magaaladii camirnayd ee suuqa iyo macdaarada iyo bakhaarada iyo ganacsiga lahayd baan ku weydiinayaa adiguna magaalada bannaankeygii baad iigu wadaaye wuxuu yidhi magaaladii camirnayd way dhowdahay ina mari qabuuraha intuu dhex joojiyey buu ku yidhi magaaladii camirnayd waa taasuu ka yidhi alxamdu lilah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الناس من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله إلهي بانكم مهدنينا إنك دقي بني آدم سامود أكسونتين ببني آدم كو مخلوق إلهي أبوري وخلقك أبو كرامة بدن أبو خير بدن وياه آدم عليه السلام مركو إلهي ودوني أبور كيس ملائكة إلهي أشيغو وحكوير إني جاعل في الأرض خليفة خليف أيان أرلد الدحدة ذكية لنا يابا إلهي خليفة الله بني آدم هو خليفة الله في أرضه خليف معناه هو محي وقفك إلهي أبو ريك قرانايا دينتي اللوغو تلقى لإنه راعان الرعصم سيدة إلهي ودونا ينا أسعودي أنا نسعون سيدة النفس ديسو أي دونيسو خليف
markaasaa ilaahay jalla wacalaa malaa'ig buu soo diray, waxa u soo diray arlada inay yimaadaan oo carro soo ururiyaan, ciidda soo ururiyaan. 40 sana la yidhi ayay malaa'igtu carrada nebi aadan laga abuuraya ay soo qaadqaadayeen. ciid meel keliya laga soo qaaday nebi aadan lagama abuurin. waxaa laga abuuray inta nuuca ciiddu arlada dusheeda ay tahay ee ay u kala qaybsan tahaa qayb looga soo qaadayo. lidaalika bini aadamku iskuma eko, qaar baa dhaadheer, qaar baa gaagaaban, qaar baa cascas, qaar baa cadcad, qaar baa madow, qaar baa maariina, qaar baa qurux badan, qaar baa foolxun, qaar baa dabeecad fiican, qaar baa dabeecad xun. markaasaa nebigu yidhi sal alla alay wasalam, qof walba carradii laga abuuray meesha laga soo qaaduu qabrigiisu noqonayaa. minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa baa ilaahay. ciiddaasaa niga samaynay, ciiddaasaa nigu celin doonaa dhexdeeda, mar dambana iyada niga soo dhex saari doonaa baa ilaahay yidhi jalla wacalaa. markaasaa qof walba ciiddii laga qaaday, ciiddii laga abuuray jirhkiisa meeshii laga soo qaaday buu qabrigiisu noqonayaa. lidaalika waxaad arkaysaa qof baydhabo ku dhashay oo baydhabo ku barbaaray, laakiin maraykan ku dhimanayo lagu aasayo maraykan. qaar baad arkaysaa reer muqdisho ah, laakiin meeshay ku dhasheen waa muqdisho, meeshay ku dhimanayaan laga yaaba inay noqoto shiinaha. qof walba ciiddii isaga laga abuuray meeshii laga soo qaaday buu ku dhimanayaa, halkaasuu qabrigiisu noqonayaa. marka 40 sanay malaa'igtu carrada nebi aadan laga abuurayo ay soo qaadayeen bay culimmadu yidhaahdeen. 40 sanana baa la yidhi ciidda ayaa la isku laaqaayay. khalaqahu min tiin, dhoobaa laga sameeyey, dhoobo. carradiibaa intoo 40 sano la isku laaqayay oo qoyaneyd, iyadoo qoyan ayay noqotay tiin. 40 sanana nebi aadam calayhi salaam waa la sawiray. khalaqakum uma sawarakum fa axsana suwarakum, waa ka ilaahay qur-aanka inoogu sheegay. aadam calayhi salaam sawirkiisu 40 sanuu taagnaa bay yidhahdeen culimmada qaarkood. markaasaa malaa'igta ayaa imanaysay, way la yaabanaayeen khalqigan ilaahay abuurayo, waana loo sheegay in la samaynayo khaliifatullaahi fii ardihi. markaasee malaa'igtu waxay u tagaan ibliis calayhi lacna. ibliis isagu malag ma ahayn, jin ayuu ahaa. insiga hortood arladan iyakaa camiray oo ku noolaa. deedna markay fasaadiyeen ee jinkii arlada dusheeda fasaad iyo munkar iyo macaasi iyo gaalnimo ay muujiyeen, ayaa ilaahay jalla wacalaa adduunka uu ka tirtiro, uu ka qaaday. leanna dadka ilaahay khayrka caabudaya mufsidiintu adduunka dusheeda inay ku noolaadaan xaq uma leh. innaka waxaan moodaynaa gaalada sababtooda adduunyadu inay ku taagan tahay. may adduunyadu waxay ku taagan tahay waa dadka muuminiinta sababtooda. laa taquuma saacatu xataa laa yuqaalu fi lardi allah allah. arlada dusheeda inta qof mu'mina oo allah allah low ilaahay garanaya intuu jooga buu nebigu yidhi, saacadda qiyaamadu ma dhici doonta buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. maalinta dadka mu'miniinta muslimiinta muwaxidiinta adduunyada ilaahay uu ka qabto. xadiis saxiixa waa kii nebigu lahaa, dabayl baa ka iman doonta min qibali shaam. dabayshaasi qof kasta oo mu'mina misqaala min darra oo iimaana qalbigiisa uu ku jira buu nebigu yidhi ayay raadinaysaa. buur caloosheeda hadduu qofka mu'minku uu ka galana, dabayshaa intay ka daba gashay ruuxda ka soo qabanaysaa. fa yabqa shiraaru lkhalqi baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. dadka dad ugu shar badan baa arlada dusheeda ku hadhi doona, kuwaasoo macruufna aanan isfaraynin, munkarna aanan iska reebaynin. ibliis baa markaa sheekh iskaga soo dhigi doona oo ku odhan doona, aniga miyaanad i ajiibaynin? markaasay odhanayaan, han ku ajiibne, maxaadna amraysaa? faya'muruhum bicibaadati alawthaan. waxau amri doonaa markaa qoryaha iyo dhagaxda inay caabudaan. ayagoo dadkaasi qoryo iyo dhagax caabudaya oo mushrikiina ayaa haddana ilaahay arsaaqada dhinac walba uu ka dhigayaa. deedna kuwaabay saacadda qiyaamadu dushooda ku dhici doontaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. marka dadka adduunyadu waxay ku taagan tahay waa dadka muslimiintu adduunka intay joogaan, bimacnaa ruuxdiiba adduunyada ku jirta weeyaan. qof muslima adduunka intuu joogo adduunyada ruuxdiibaa ku jirta.
laakiin dadka muslimiintu maalinta adduunyada ay ka dhammaadaan ee ilaahay adduunyada uu ka dhammeeyo waxaad ogaataa ruuxdii baa ka baxday koonka hadday ruuxdu koonka ay ka baxdana waa jidh bini aadanoo ruuxdii ay ka baxday weeyaanoo deedna marka caalamka ilaahay waa baabi'inaya deedna uu nidaamka dhan buu isbedelayaa yowma tubaddalu alardu غayru اlardi wالsamaawaat wabarazuu lilaahi alwaaxidi alqahaar samaawaadka iyo araadiinta ayaa nidaamkan ay hadda aan ku naqaana nidaam ka duwan ayay noqoni doonaan oo samada waa la laabi doonaa dhulkana waa la duubi doonaa adceedana waa la qaban doonaa xidiguhuna way soo daadan doonaan badahana waa la engenji doonaa arladan aan ku joognana sida xasiirka yareed ku tukato aad u laabto ayaa arlada dhanba loo laabi doonaayo meel baa la iska dhigi doonaa marka arladan intaan insigu intaynan iman jin ayaa arlada ku noolaa jinkii markay arlada fasaad iyo munkar iyo gaalnimo ay ku dul camireen fasaad markay arlada dusheeda ay ku dul muujiyeen ilaahay malaa'igta wuxuu ku amray kuwaasi arlada dusheeda inay ku noolaadaan xaq uma leh ka soo qabto ka tirtira baa lagu yidhi marka ibliis calayhi lacna oo markaa caabid ahay oo cibaado badnaa ayay malaa'igtu u shafaacad qaadaan ay ku yidhaahdeen ilaahow addoon wanaagsan oo saalixa ayaa ku dhex noole addoonka ha laga reebo deedna markaasaa ilaahay shafaacaddii ayuu ka aqbalay malaa'igta ibliis intoo laga qaaday dhulka ayaa samada la geeyey deedna halkaasuu ilaahay ku caabudaya sanawaad badan marka malaa'igtu waxay u malaynayeen ibliis isagu inuu iyaga ka fadli badan yahay deedna markaasay maaragtaan intay u yimaadaan bay ku lahaayeen ibliisow imtixaan baa soo socda oo abuurkan la abuuray ee la sawiray waa lanagu imtixaamayaaye inuu ilaahay imtixaanka naga badbaadiyo ilaahay noo baryo ilaahay noo weydii markaa buu u ducayni jiro wuxuu odhan jiray ilaahay imtixaanka soo socda hayniga badbaadiyo ilaahay fidnada hayniga badbaadiye buu odhan jiray isagaa iska reebi jiray maaragtaane ducada iyakana waa u ducayn jiray ducadii iyaka waa loo aqbalay laakiin imtixaankii isagaa ku dhacay baa layidhi inaan aamusnamo qurux badno ya inaan fadhiisanana ma qurux badno yo miskiid meeshu عفوا فديدا raalli ahaada فديدا رالهادا deegaanka kan fadheeda marka gaarana raalli ahaada oo fadhiista insha Allah waad maqlaysaan si fiican baad u maqlaysaan fadheeda raalhada simsi wadara marka gaarana raalhada fadheeda maqsuudka hadalka inaad maqashaan weeyaan miskiidkii ilaahay baa noo waasicinaye dad baa dibadda fadhiyo dhageysanaya marka inaguna fadhiista insha Allah Allah idin barakeeye وصلي رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي لأن مركز إلهي تبارك وتعالى آدم عليه السلام روح دي ما إلهي كوافوف روح دو أمر إلهي ويان ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا روح ذا أيك ويدين ينبع نبي قال له يري لكن واحد شاكت الروح وأمر إلهي ويان روح ذو أمر إلهي ويان إلهي أمر كيس ويان روح ذو لأن آدم عليه السلام أمر إلهي كي مدي لأن جركيس الروح ذو مركيش النبي آدم عليه السلام وحيوه الرئي أفكيس كصوبح وحوها أوهن الصودي لأنه وحيري الحمد لله لأن مركز ربي يقول يرحمك الله الحمد لله وأرجي وجوه الرئي النبي آدم أفكي سكسوا بحي بعد العطس عند صدى كذب آدم عليه السلام وحيري الحمد لله وأرجع عجيب أرجاس أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله إلا الله والنبي يقول عليه الصلاة والسلام بريا إله إلا بريا وحا وقفل لبدن إنا ترى الحمد لله حس إله إلا حسن وحا وقفل لبدن إنا ترى لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا قولوا لا إله إلا الله قولوا الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة الإسلام إلهي يعني نقوم هذا نعمة إلهي نسي إلهي نقوم هذا
aadam calayhi salaam ruuxdii markii lagu afuufay u hindhisooday deedna markaasuu yidhi alxamdu lilaah markaasaa rabbigii u duceeyey tabaaraka wa tacaala deedna markaasaa malaa'igta la amray inay u sujuudaan calayhi salaam malaa'igtu dhammaan way u sujuudeen laakiin ibliis calayhi lacna uu iska diiday sujuuddii malaa'igtu amarkii bay qaateen laakiin ibliis amarkii ilaahay uu iska diiday si fiican hadalkaa u dhegaysta qaala yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya astakbarta am kunta min alcaaliin baa ilaahay ku yidhi yaa ibliis maxaa kaa manciyey oo kuu diiday inaad u sujuuddo khalqigan anigu aan gacantayda ku sameeyey miyaad kibirtay baa lagu yidhi mise kuwa iskor yeelay baad ka mid noqonaysaa qaala ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin anaa ka khayr badan buu yidhi ibliis wuxuu leeyahay nebi aadam calayhi salaam anaa ka khayr badan isagana dhoobaad ka samaysay anigana naar baad iga samaysay buu yidhi malaa'igta nuur baa laga sameeyey nuur khuliqat almalaa'ikatu min nuur wa khuliqat aljaanu min naar wa khuliqa aadamu calayhi salaam mima wusifa lakum baa nebigu yidhi malaa'igta nuur baa laga abuuray jinkana naar baa laga abuuray buu rasuulku yidhi aadam calayhi salaamna wixii laynoo sifeeyey baa laga abuuro dhooba ayaa laga sameeyey marka malaa'igtu nuurka laga abuuray iyaku may sheegin laakiin amarka ilaahay bay qaateen oo sujuuda baa la yidhi oo aadam u sujuuda calayhi salaam deedna markaasa nebi aadam u sujuudeen iyaku ibliis ama isagu sujuudda wuxuu u diiday hadalku ma dusha mise waa hoosta dusha weyaan dadka dusha jooga ha yar aamusaan dadka korka saaran ha aamusaan dadka sare joogan ha fadhiistaan fadheeda miya fadheeda maasha allah fadheeda yaa ahla baydhaba fadheeda yaa ahla baydhaba maasha allah khayr jacayl baa inaga muuqda khayr jacayl waa balad alqur'aan balad alcilmi waalculamaa waa waddankii qur'aanka lagu yaqaanay waa waddankii culummada iyo cilmiga loo soo doonan jiray aad joogtaan alxamdulilah dhahada fadhiista laakiin alxamdu lilah ku salliya rasuulka ibliis calayhi lacna aadam maxaad ugu sujuudi weydii baa lagu yidhi wuxuu yidhi anaa ka khayr badan buu yidhi waxaa la yidhi dembigii ugu horreeyey ee khalqigu ilaahay ay ka galaan dembigaa wuxuu ka bilaabmay kibir buu ka bilaabmay kibir isweyni inuu qofku wax ismoodu isweyneeyo dembigii labaad ee ilaahay laga galana waxa uu ka dhacay nebi aadam calayhi salaam dembiga nebi aadam waxa uu ku salaysnaa waa ashahwa nolol jacayl ha sii noolaatidee geedka cun baa lagu yidhi ibliis baa ku yidhi geedka haddaad cuni lahayd ama laba malag baad ahaan lahaydeen ama jannadaad weligin ku wari lahaydeen buu yidhi dembina waxa uu ku yimiday asaaskiisu wuxuu ahaa shahwad nolol jacayl adduunye jacayl raaxa jacayl laakiin dembiga ibliis waxa uu ku yimiday asaaskiisu wuxuu ahaa isla weyni buu ahaa lidaalika qofka hadduu mutakabir noqdo waa khatar qofkaasi inuu toobad keena way adag tahay laanna mutakabir waa ilaahay jalla wacala alcizu izaari waalkibriyaau ridaa'i faman yunaasicunii cadabtuhu baa ilaahay yidhi caza wajalla xadiis alqudsi alcizu izaari guushi waa guntigaygii waalkibriyaau ridaa'i kibirkuna waa go'aygii baa ilaahay yidhi labadaa ninka igula dooda baa ilaahay yidhi waan cadaabi baa ilaahay yidhi laa yadkhulu ljannata man kaana fii qalbihi mihqaalu daratin min kibri baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka dhowdhe case in la ego kibira qalbigiisa ay ku sugan tahayna janno ma gala buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kibirka ayaa la macneeyo waxa lagu macneeyey waa xaqa oo qofku in kolka loo sheego uu qaadan waayo iyo dadka u yaraystuu xaqiro weeyaan
فإبليس دنبغا أو قالي وحا أساس وها إسلويني بأساس وهي لذلك توبد إلهي ومفر توبدنا ما إبليسنا ما توبد كينين وحا قرآن كنو عديين النار كنو قندون النار وحي سقر راعين النار بيكون ضمين الدونان آدم دوبا لغا سميي لكن إبليس وحا لغا أبوري مادة كون كان إلهي وكو أبوري كلا قوة بدن له مادة صدحات با إبليس لغا أبوري مادة صدحات كائنات كان النوم مغدا وحا وقو أود بدن بورها وحا كأود بدن برتو بورتا ويكلا جيحدا برهنا وحا كأود بدن ماركتاني ضبكنا برتا حديدك أو دلالية ضبكنا وحا كأود بدن ماركتاني وبيها بيهو ضبك وي بختيان بيهنا وحا كأود بدن ضبيشنا بدا انتي قاضي بريك كودي فتا marka ibliis waxa laga abuuray dab laga abuuray dab maxaa laga abuuray dab waalidi waxa laga abuuray maadadii saddexaad dabka waxa ka adag dabka waa biyahana waxa ka adag waa dabaysha laakiin aadam waxa laga abuuray baa la yiri maadada sideedaad baa laga abuuray jirkiisa ibliis marka wuxuu eegay maadada isaga laga abuuray waa dab maadada nabi aadam laga abuurayna waa dhooba laga abuuray أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أنا كخير بدن بوري آدم إسقى واحد كسميسي روبات كسميسي أنا كان واحد يقى أبو ارتبوري مارك تاني الضب مرقاسا إلى هيدا فاخرج منها فإنك الرجيم أدق واد مدح أدقته واد قلبي أدقته نحريس سيدا كدع بحو كدع روبا لقولي إبليس لأن نحريس إلهي بلقى ديرين مركا ملائكة مادة إياك لغا أبوري مادة كون كان نظام كان عالم كان كنا الله تعالى ماها إياك النور بالغا أبوري نور بالغا أبوري ملائكة لكن جنكو إساقو مادة دي لغا أبوري مادة آدم لغا أبوري بوسكو قيميي أمر إلهي بو جبيي لأن أو قيمة دعي إلى قيامها نوالا لعنة يا مالك قيامها مركو صوبحانا نارتا الله قادي دونا كرسي كيسو نارتا جانبو دعي الله أما ملائكته أيكم ما يجن وح أيك لقى أبو ري وح آدم لقى أبو رسمي بربر دقينه وحي أجن أمر كان آيات صبحي أن اسجدوا لآدم آيات يري الله بايري لأن يكو أمر كلا هاي بقاتين مكانة دودي شرف دودي ملائكته لا قيامها وإليه مرقى خلقك الدنيا كنول لبدا طريق بكلام مريا قال أمر كلا هاي راعيسا وشريعة راعيسا وإلهي وينينيسا وأمرك إلهي وينينيسا وحق أمرك إلهي كيمي قادنيسا كوا الدنيا انت جوغان يا أخرى وكرب الله قاديا كوا أما كوا دلك إيغا دلك إبليس وحو إيغا مادة لغا أبو ريبو إيغا كوا يكون إيغا دلك وامحي وحي هايستان بقيمين يا وحي يهين بقيمين يا قبيل كي كدشين بسكو قيمين يا وحي مادة هايستان بسكو قيمين يا كواس إلاكتي سوى قيمة دعين الدوكن يا أخرنا قيمة ملا كواس مرقى بني آدم كان لبا الشيء بني آدم كان لقى أبو ري آدم عليه السلام الجسد والروح روح ذو حق إلهي بينك قتم دي أما جسدك عرضنا لقى أبو ري سقوا عيدنا ولسكو جي جسد بني آدم مرقى جد كأنن ما هو حق قيمة له جدكو قيمة ملا جرك بني آدم كم حاك بوح بيا كبوح وبيو ودعان وديق وهلب وضب واللفاء انت أصحاب بني آدم كبوح ده جركيس بركة انت ما هو حقيمها كويا ليس واحد بني آدم قيمها وكويا لنا يا وأمرك إلهي مركوقات إن أكرمكم عند الله أتقاكم با إلهي لكين ينقو الله كعبسك بدل له baa ilaahay agtiisa inagu sharaf badan marka waxa laga abuuray baa la yiraahdaa eegin mar walba waxaad eegtaa waxa adiga lagu abuuray eeg waxa laga abuuray ha eegin waxaad haysatana ha eegin waxaad adigu aad tahayna ha is eegin qabiilkaad ka dhilatayna ha eegin aqoontaad leedahay adduunyadaada ha eegin darajaadka adduunyada waxaad ka haysataa ha eegin
waxaad eegtaa wixii lagu abuuray waa maxay waa cibaado waa inaad eegtaa ilaahay amarkiisa ma haystaa mise ma haysatid falyandur al-insaanu mimma khuliqa min maa'in daafiqin yakhruju min bayni sulbi wat-taraa'ib innahu ala rajcihi laqaadir yawma tubla as-saraa'ir famaa lahu min quwwatin walaa naasir ilaahay baa inoo sheego bini aadanku saanad isku cajabin baa lagu leeyahay bal waxa laga abuuray uu dib ugu noqo adigu waxa laga abuuray nutfa biyamani ayaa laga abuuray haddaad kor uga baxdana aadam calayhi salaam dhoobaa laga abuuray basharka kaloo dhanna nutfa ayaa laga abuuray markaad dhimatana waxaad noqon doontaa jiifaad noqon doontaa jiifa darxibaa gebigaa uu isku bedeli doonaa haddadan inta qofka adduunyada uu ku nool yahayna saxaro iyo kaadi iyo dheecaan iyo dhiig baa ka buuxa jidhkiisa deedna ilaahay baa ku asturayo bini aadamka kugu dhex asturaya marka innaku waxaanaan maanta qiimaynayno maaha wuxuu ilaahay nagu qiimaynayo dadka zamankan maanta khaasatan zamankeennan aan joogno waxa bini aadamka lagu qiimeynayaa maanta waa adduunyadiisa lacag dhaqaaluhu haysta dadku ku qiimeeyaan wax uu leeyahay baa qofka maanta lagu qiimeeyaa waxa bini aadamku ay kugu qiimeynayaan waa wax dibadda kaa yaalla laakiin ilaahay rasuulku waxa dibadda kaa yaalla kugu qiimeyni maayaan ilaahay rasuulku waxay kugu qiimeynayaan taqwada qalbigaaga ku jirta iyo akhlaaqda wanaagsan baa lagugu qiimeyn nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey dadka inta badan ee jannada gelideeda maxay ku mutaystaan noo sheeg waxa uu nabigu yidhi taqwa allaahi wa xusnu lkhuluq alla ka cabsi iyo dabeecadda wanaagsan dadka intooda badan waxaa la yidhi nebi allow jannada gelideeda maxay ku mutaystaan noo sheeg wuxuu yidhi alla ka baq iyo dabeecad wanaagsan alla ka cabsi haddaad leedahay xaqa ilaahay si fiican baad u gudan dabeecad wanaagsan haddaad leedahayna xuquuqda bini aadamku ay kugu leeyihiinna si fiican baad iyadana iskaga ilaalin diinteenna islaamkuna labadaa tiir bay ku taagan tahay xuquuqullah iyo xuquuqulcibaad xaq ilaahay baa kugu leh xaqa ilaahay kugu leeyahay waa maxay waa inaad ilaahay aad caabudid oo cibaadada ilaahay aad cid kale ku ladhin dariiqadii nebigana aad ku caabudid calayhi salaatu wassalaam xuquuqulcibaadna waa maxay khalqiga bini aadamka ilaahay kula abuuray adduunyadan inaad ixsaan u samaysid haddaad ixsaan badan aanad lahayna inaad bini aadamku adiga sharka kugu abuuran ay ka nabad galaan taasaa nebiga la weydiiyey dadka intooda badan jannada gelideeda maxay ku mutaystaan waxa uu nebigu yidhi dabeecadda wanaagsan iyo alla ka cabsiga buu nebigu yidhi alla ka baqaya dabeecadda wanaagsan bini aadamkana ilaahay kuma qiimeynayo dhaqaalahaad haysato ilaahay kuguma qiimeeyo dhaqaalahaad haysato intuu leegyahay ubadka aad dhashay intay yihiin mansiladda adduunyada dadka agtooda aad ku leedahay intay tahay warshadaha aad leedahay ilaahay kuguma qiimeynayo xoolaha iyo beeraha aad bannaanka aad ka samaysteen ilaahay kuguma qiimeynayo ilaahay bini aadamka waxa uu ku qiimeynayaa waa diin ilaahay wuxuu ku qiimeeyaa waa alla ka cabsi Aba Sufyaan ayaa magaalada Madiina u yimid nabiga inuu la galo heshiis sulxi buu u yimid heshiis inuu nabiga la galo calayhi salaatu wassalaam markay nabiga wada hadleen uu sii noqonayay ayuu soo maray majlis xalaqad meel ay fadhiyaan Bilaal iyo Salmaan iyo Suhayb iyo Abi Bakar ay joogaan ayuu Abu Sufyaan oo markaa wali aanan islaamin ayaa sidaa u soo agmaray markaa Bilaal baa yidhi wali cadowga ilaahay seefti ilaahay maynan qaban buu yidhi يعني ولي عدو إلهي مو ندمن ولي من نول يعني أبي بكر الصديق رضي الله عنه أيا هلو كويري ورم أوديكي قريشين السيد كأوها مياد هذا الكاكليدي هم بيري لأن مرقابة يكوس كأموسين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسعودو النبي وشيق عليه الصلاة والسلام مرقابو النبي هلو نبي وحيري لعلك أغضبتهم
yaa abaabakar raggaa dee malaha waad ka cadhaysiisay buu nebigu ku yidhi. bilaal iyo camaar iyo salmaan iyo suhayb hadalkaa markaad ku tidhi malaha way ka cadhoodeen, laakiin waxaad ogaataa abubakar sidiiqow haddii raggaa aad ka cadhaysiisay ilaahay baad ka cadhaysiisay ugu buu rasuulku ku yidhi. عفوا فقراء المهاجرين بلال الحبشي رضي الله عنه يا سلمان الفارسي هذه لغا فرحيان إلهي بل لغا فرحيه أقول لعلك أغضبتهم بالنبي يقول يا أبا بكر ما لها رقا إنها كعريسي سبا أيا عبد مرقا سوري يا رسول الله ما قرن كرو مرقا النبي يقول أقول أبو بكر هذه رقا كعريسي سو نكي كعريسي سي أدقوا أد نقطي وعادوا قاتا إلهي بات كعريسي سو أقول بكيولي أبي بكر وصور ده ويمد وحو كيري ولا الله يوميا نقع عريسيي مرقا سو كيد هذين يكونا ما يسكتك بيكون هذين دنبقا قال الله الدافع قورك وحبسكو قومي قبنين قلبي واسع بوها مركيبه ويسكع عفيين ويسكع سامحين لأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلق أمد النبي محمد وكله هاي بيقرنيان أكتو قيمو أبو بكر كله هاي وقيمه وأنك النبي محمد لسه هجرود عليه الصلاة والسلام مالنتي النبي محمد عندنا سور راعي ويدي نجي النبي محمد كلي سور راعي بوها مالنتي عربي النبي قد قالها كقصتي نجي دقالي النبي قال لسمي بوها مالنتي قريش النبي قد دون يسي نجي النبي محمد قد قال لك قال النبي محمد قد كل جري بوها أبي بكر الصديق صحابي وحوها صحابة داكتو دم منزلة الرئيس كله marka ilaahay jalla wa ala naguma qiimeynaya waxyaabaha dadku ay dibadda ku haystaan ee bini aadanka waxa lagu qiimeeyaa dhaqanka wanaagsan ee noloshiisa ku dhex jira haday iimaan tahay haday alla ka cabsi ay tahay haday cilmi ay tahay haday taqwad ay tahay haday akhlaaq wanaagsan ay tahay taas ilaahay kugu jeclaani hadii ilaahay ku jeclaadana bini aadanka oo dhan baa ku jeclaan Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alayhi ayaa soo galay magaaladii Baghdad waa ahdigii Harun ar-Rashid weeyaan magaaladii waxa laga dareemay dajah sawt baa laga dareemay iyo guux iyo saddex socod dadna markaasa xaaskii Harun ar-Rashid Zubayda la oran jiray ayaa waxay ku tiri xaraskeyga ilaalinayay bay ku tiri magaalada maanta maxaa ku soo biiray ii sheega markaasa lagu yiri imaam baa soo galaya imaamada aimada muslimiinta kamida dadna dadka muslimiinta oo dhan ninka bay maaragtaan u soo maaragtaan ay kulankiisa masaajid iyo khayrka u soo camirayaan dadna markaasa masaajidka jaamica ay u soo galay 100,000 oo qof dad ka badan ayaa markiiba xalaqada fadhiisatay dadkaasi adab bay lahaayeen cilmi bay lahaayeen alla ka cabsi bay lahaayeen akhlaaq wanaagsan bay lahaayeen culimada qadarkayga ayay garanayeen dadka islaam muuminka bariga iimaanka lagu qiimeynayay muslimiintu diinta isku jeclaayeen caamada muslimiintu culimadooda ay ku xidhnayd caamada culimada ay jeclayd culimaduna caamada ay la soconaysay wax baraysay masaajidkii buu soo galay markiiba darsi buu bilaabay dadna sheekhi uu hindhisooday baa la yiri maxaad u malayn markuu hindhisoodu alxamdulillah uu yiri 100,000 oo qof ayaa min samiimi quluubihim ayagoo qalbiga ka jecel waxay yidhaahdeen hal mar keliya yarxamuka allah bay yidhaahdeen sawdka ka soo baxay 100,000 oo qof ayaa qasrigii boqorka laga maqlay Zubayda way yaabto waxay ku tiri ciidankii ilaalinayay bay ku tiri waa maxay qayladaasi waxa la yidhi dhibaata ma dhicine sheekhi baa hindhisooda waa ducadii loo ducaynayaa maqashaa lagu yidhi dadna markaas qiira qabatay masway maseertay Harun Rashid bay u gashay kicisay ku tiri ummadda maadaha xakumo amiiru ah mise wadaadkana amiiru ah markaasuu ciidankiisii buu ku yiri wadaadka magaalada soo galay waa kuma markaasaa lagu yidhi waa Abdullah ibn Mubarak baa soo galay caalimkii reer Khuraasana ee zaahidka muhaddithka ahaa baa soo galay markaa Abu Zubayda ku yiri naa iska jiibso iska fadhi buu ku yidhi aqalkaaga anagu qoloftaan xakunaa culimaduna qulubtay xakumaane anagu qoloftaan xakunaa culimaduna xagee xakumaan culimada qulubta yaa ku xidhan maadaama culimadu ilaahay ay ku xidhan tahay ayakana qulubta dadka ilaahay ku soo xidhaya zamankaas dadka waxa lagu qadarinayo lagu qiimeynayay iimaanka lagu qiimeynayay cilmiga lagu qiimeynayay
akhlaaqda wanaagsan baa lagu qiimaynayey. nin yahuudiya ayaa yidhi aqalkayga waan gadayaa, waan iibinayaa. meeqaad ku gadaysaa baa lagu yidhi. wuxuu yidhi 120,000 oo dirham baan ku gadayaa. markaasaa lagu yidhi 20,000 waa macquul, laakiin 100,000 ee dul saarata maxay tahay lagu yidhi. wuxuu yidhi 20,000 waa aqalka qiimihiisii, waa runtiin, laakiin 100,000 waxa weeyaan waa darisnimada aad la darsaysaan. cabdulaahi ibnu mubaarak baa daris la ahay, markaa darisnimadiisa ayaan ku iibinayaa 100,000 buu yidhi. 100,000 wallaahi laa yu'min, wallaahi laa yu'minu, wallaahi laa yu'min. qiila man yaa rasuula allah, qaala man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah. nebigu calayhi salaatu wasalaam 3 jeer buu ilaahay ku dhaarto, wuxuu yidhi wallaahi baa ku dhaartay iimaan male, wallaahi baa ku dhaartay iimaan male oo ilaahay ma rumayn, wallaahi baa ku dhaartay iimaan male. yaa rasuul allah, waa aya baa lagu yidhi. qofkaasi waa qofka jaarkiisu sharkiisa ay ka nabadgeli waayaan, qofkaasi ilaahay aakhire ma rumayn buu rasuulku yidhi. akhlaaqda wanaagsan sidaasaa loo kala iibsanayay dadka akhlaaqda wanaagsanna darisnimadooda. dadka dhaqanka wanaagsanne ee ilaahay ku xidhan sidaasay ummaddu ugu xidhnayd, sidaasay maaragtaan masaajidda ummaddu u soo camiraysay. yaa falidaalika walaalayaal, ilaahay naguma qiimaynayo qabiil, ilaahay bini aadamka kuma qiimaynayo. haddii qabiil lagu qiimaynayo cid, abaalahab nebi maxamed adeerkii buu ahaa, abu aalibna nebi maxamed adeerkii buu ahaa. ilaahay tabaaraka wa tacaala waa hanuuniya weeyaan, alhaadi, hanuunkana ilaahay isagaa bixiya. ilaaha caza wajalla abulahab u qadaray inuu gaalnimo ku dhinto, bilaal alxabashana hidaaye allaha u qadaray, ilaahaasaa hanuuniya. marka mansab maaha, reerkaad ka dhalatay maaha waxa ilaahay kugu qiimaynayo. maadada dadku maanta ay isku qadarinayaan, hebelkii lacagta badnaa, hebelkii fooqa weyn halkaa ka dhistay, hebelkii warshadaha badan lahaa, hebelkii darajada weyn lahaa, hebelkii gawaadhida waaweyn lahaa, hebelkii dukaanada waaweyn lahaa, hebelkii bakhaarada waaweyn lahaa. maxaa ka dambaysa? qabrigiisii yaraana waa kan baa ka dambaysa. maxaa ka dambaysa? qabrigiisii yaraana waa kan qabrigiisii. kullu ladii fawqa turaabi turaab. waxaan arlada dul yaalla waa ciid, waa ciid, ciidna waa ku noqonayaan. dhulku waa ciid, aqaladu waa ciid, gawaadhidu waa ciid, adigu ciid baa tahay, lacagtu waa ciid, dharkaagu waa ciid, cunnadaadu waa ciid, daaruhu waa ciid, qusuurtu waa ciid. aaway dadkii adduunyada soo camiray? aaway nin baa soo galay magaalada, markaasuu nin sheekhu argo wuxuu ku yidhi magaaladii camirnayd i dhexgee, magaaladii camirnayd ee dhisnayd baan rabaa in lay tusee, magaaladana waan ku cusubahay igee. ibraahim aladham baa kaxeeyey, allah u naxariistee. magaaladii camirnayd baan rabtaa miyaha, isoo raac. uu kaxeeyo magaaladii buu ka saaray. markaa buu yidhi war magaaladii camirnayd ee suuqa iyo macdaarada iyo bakhaarada iyo ganacsiga lahayd baan ku weydiinayaa, adiguna magaalada bannaankeygii baad iigu wadaaye. wuxuu yidhi magaaladii camirnayd way dhowdahay, ina mari. qabuuraha intuu dhex joojiyey buu ku yidhi magaaladii camirnayd waa taasuu ka yidhi. wuxuu yidhi waa qabuurihii. wuxuu yidhi tan cidda timaadda kama noqoto, cidda timaadda kama noqoto, laakiin dadka magaalada maalin walba 40-50 qof baa ka soo baxda, halkana yimaadaanoo halkana camirmaysa. dadka halkan soo galana ma noqdaan buu yidhi, taa way naaqusmaysaa, tanna way biiraysaa buu ka yidhi. yaa muqafal, innagu waxaan leenahay magaaladii baydhabo way dhisantay. magaaladu ma dhismine qabuuraha dhismaaya. magaaladu may biiraysaa mise qabuuraha biiraya? bal iga jawaaba. qabuuraha camirmaya. waayo dadka magaaladan ku nool maalin walba 50-40 qof baa dhimanaysa oo laga kaxaynaya, laakiin dadka qabuuraha gala, qabuuraha kama soo noqdaan iyagu. marka ta aan laga soo noqon baa camiraysa, tan laga baxayo dadkeegu way sii yaraanayaan, ta aan laga soo noqonayn baa iyadu camirmaysa. waa qabuuraha weeyaan, waa qabuuraha. habeenada ka mida ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam almu'miniin caaisha radia allaahu canha aqalkeedu nebigu jiifay. markaasuu nebigu ku yidhi caaisha, caawa ma iska kaydayn ilaahay han caabude,
markaa bay ku tiri ha iska cibaadayso deedna nebigu intuu sare kacay buu tahaaro qaatay uu qubaystay deedna u weysaystay salaad buu nebigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam salaaddii buu nebigu aad u dheereeyey deedna caaisha radia allahu canha waxay tihi waan gamcay in yar kadib baan soo kacay aqalkii baan taataabtay agtaydii nebigu ma jiifo waan eegay ma taagna nebigu ma joogo meesha waxay gala dareenoo waxaan is idhi kollay nebigu reerihiisii kaluu caawa u guro reerihiisii kalu u tegey markaasaa ka soo daba baxay tidhi waxaan arkay shakhsi qabuurihii baqiic dul taagan oo ooyaya oo ducaynaya markaasaan gadaashiisa nebiga fadhiistay markaasaan fikiroon is idhi alla caaishaay waad ceebowday maanta adigana maseer baa ku soo kiciyey xilliga oo waxaad istiri nebigu reerihiisii kale reer ka miduu kollay u tegey bal doondoon nebi maxamedna qabuuruhu dul taagan yahay uu ooyaya muntasifa alleyl ayaa nebigu salaataleylkii markuu tukaday qabuuraha intuu isdul taagay buu nebigu qabuuraha ayuu dul joogsado aakhiradu nebigu xasuusanaya daadna markaasay caaisha hayar intay u soo noqotay ayay qol aqalkaygii soo gashay gogashiiba hoosta ka gashay markaa nebigu waa u jeedaa calayhi salaatu wasalaam min mucjizaatihi waxaa ka mid a baa la yidhi sida nebi maxamed xagga hore wax uga arko ayuu xagga dambana uga arki jiray baa la yidhi deedna markaasuu nebigu markiiba uu arkay uu iska soo noqday deedna ugu yimiday caaisha oo gogashii markaa faraashkii hoosta ka gashay buu u yimiday markaa buu nebigu kor fadhiista wuxuu ku yidhi caaisha maxaa dhacay buu adiga soo jeedee markaa bay ku tiri waxba markaasuu yidhi sawdigii ilaa qabuuraha ay daba yimiday ma markaasay tiri yaa rasuul allah adiguna waadi kalaad socotaa annaguna waadi kalaan soconnaa bay ku tiri adiguna waddo kalaad socotaa oo aakhiro iyo qabuur iyo maaragtaan xisaab iyo janno iyo naar iyo diin iyo ummad baad ka fikiraysaa annaguna bashar baanoo dumar baanoo waa iska maseeraynaa baa tiri raalli ah iska saaxay ku tiri waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaad ilaahay ka cabsato oo aakhiradu kula weynaato oo mar walba dhimashadu ku hor taallo noloshaada adduunyadu way toosnaan haddaad allihii ku abuuray mar walba aad xasuusan tahay aakhirada aad u socotana ay ku hor taallo in la dhimanayana aad ku xisaabtamaysid xaqa ilaahay waad ku toosnaan xuquuqda bini aadamkana waad iska ilaalin xaqa ilaahay inaad ku toosnaataa waxa u sababa waa alla ka cabsi waa inaad garataa ilaahay marka u horraysa xuquuqda bini aadamka inaad iska ilaalisaana waxa u sababa waa inaad garataa aakhira inay jirto lagula xisaabtamayo haddaad ilaahayna xasuusanayn aakhirana aad xasuusanayn noloshaada adduunyada waxay noqonaysaa kacakuf waad kacakufi noloshaada diintaaduna waxay noqon istiqaamo ma yeelanaysid diinta istiqaamo ku yeelan maysid diinta istiqaamo inaad ku yeelataa oo diintaada ku toosnaataa alla ka cabsi baa u shardiyaya iyo maaragtaan inaad aakhirada kula weynaato saciid ibn zayd radia allaahu canhu ayaa waxaa ka soo cabatay islaan duqa amiirkii mu'miniinta cusmaan bay u timiday markaa bay ku tiri saciid ibnu zayd ninka la yidhaha dhulkaygiibuu qayb iga qaatay weliba ceelka biyahee halkaa ku yaalan aniga alla bay ku tidhi cusmaan binu cafaan baa u yeedhay saciid ibnu zayd abalacwar wuxuu ahaa nin ducadiisa la aqbala buu ahaa 10kii jannada loo bishaareeyey buu ka mid yahay deedna markaasuu u yeedhay wuxuu idhi islaantan duqda hiblaayaa kaa cabanaysa waa kaa ashkatoonaysaa oo maxay kaga ashkatoonaysaa waxay leedahay dhul aan leehay buu iga qaatay waa dhulka halkaaya weeyaane dhulkiisa xiga weliba ceelka biyaha leh meeshiisa ku taalana aniga alla bay tidhi saciid allah raalli ka noqday wuxuu idhi yaa amiira almu'miniin
anu labadayda dhagood waxaan ka maqlay oo kaga maqlay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh taaka in leeg oo dhul xaqa naasa qofka xaq darra ku qaata buu nabigu yidhi waxa lagu ciqaabaa aakhiro 7 dhul ayaa silsilad intoo ku xidho qoorta loo geliyaa silsilad intoo lagu xidhaa qoorta loo sudhaa deedna waxaa lagu amraayo lagu ciqaabaa inuu jiidu la kaco mana jiidi karaayo hadalka anu nabi maxamed ka maqlay may kula tahay dhul dad leeyahay inaan gardarro ku qaadan gacmuhu xirka u taago wuxuu yidhi ilaahu hadday igu been abuuranayso indhaha ka qaad ha dilin adoo indhaha ka qaada mooyaane ceelkaa ay sheeganaysana ilaahu qabrigayga ka dhig buu yidhi siiya buu yidhi dhulkay sheeganaysay iyo ceelkiiba siiya laakiin waxaa kuu sheegayaa cumaanow xadiiska nebi maxamed anigoo ka maqlay may kula tahay adiga dhul bini aadan leeyahay inaan qaadan anu haba qaadatee siiya oo cali dhulkii waa la siiyey maysan dhimanin ilaa iyadoo nool baa ilaahay indhihii ka qaaday markaasay odhan jirtay habaarkii saciid binu zayd baa igu dhacay iyadoo socoto oo habeen sidaa u socotay lawa indhalaadahe beerteedii dhex wareegaysana ceelkii ay sheeganaysay isaga ka qaadata bay ku dhacday halkii baa laga dhigo qabri looga dhigo lagu asalay dulxaq annaas inuu dhaco waxaa ka hor taagan waa maxay xadiiska nebi maxamed uu maqlay calayhi salaatu wasalaam yakhaafuun aakhiray ku xisaabtamayeen ilaahay la kulankiisay ku xisaabtamayeen yowmaydin tucraduun laa takhfaa minkum khaafiya qur-aankaa ilaahay ku sheegay qiyaamadu waa maalintee waa maalinta khalaa'iqdoo dhan la soo saaray ilaahay loo bandhigi doono banka qiyaamaa la joojin khalqiga ka xisaabayana waa ilaahay 3 siyaabana waa lagu soo saaray khalqiga qolada u horeysa buu nabigu yidhi fawjan raakibiin qola qabuuraha markay ka soo baxaanba fardaha jannada loo keeni buu nabigu yidhi deedna carshiga ayaa la hoosgeynayaa qolana waxau nabigu yidhi waa maashiina calaa arjulihim labadooda lugood bay ku soconayaan ilaa iyo maxsharka halka khalqiga lagu xisaabayo qolada saddexaadna buu rasuulku yidhi wejigay ku soconayaan buu nabigu yidhi wejigooda nin saxaabi ayaa hadloo yidhi nebi allow sidee wejiga loogu socon doonaa markaa buu nebigu yidhi ilaahay bani aadanka arlada dusheeda lugaha ku socodsiiyey waa qaadir inuu maalinka mujrimiinta madaxa ku socodsiiyo ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم سما وعميا وبكما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا بإلى حيري dadkii mujrimiinta ahaayee adduunka dusheeda mujrimiinta ahaayee dunuubta badnaa ee ijraamka iyo macaasida iyo qaflada iyo diin la'aanta ku jiray banka qiyaama ayaan soo saari doonaa baa ilaahay yidhi iyagoo aan maqlaynin oo aanan arkaynin oo aanan hadlaynin saddexdaaba waa laga xidhi doonaa markaasay madaxa ku soconi doonaan deedna markaasaa jahannama lagu guri doonaa jahannama marka holaceegu u naaqusmaba baa ilaahay yidhi saciira ayaan ku hurinaynaa baa ilaahay yidhi walciyaadu billaah saciira waa naar naaraha ayay hurisaa deedna halkaasaan ku hurin doonaa baa ilaahay yidhi hadday naarta ay galaanna uma laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa mana dhimanayaan mana noolaanayaan waayo dhimashadu waa nolosha adduunyada ee lagaga tagaa mooyaane aakhire haddii mar la tago dhimasho ma jirto ee qolana naar bay ku waariyaysaa qolana janno ayay ku waariyaysaa kuwa jannada ku waariya allah inaga dhigo yowma naxshuru lmuttaqiina ila arraxmaani wafda wanasuuqu lmujrimiina ilaa jahannama wirda yowma naxshuru lmuttaqiina dadkii ilaahay adduunka dusheeda kaga baqaayay waxaa soo xashrin doonaa baa ilaahay yidhi iyagoo wufuuddu markay imanayso waa laga hor yimaadaa gawaadhida ugu fiican baa loo keenaa huteelada ugu qurux badan baa lagu soo dhoweeyaa waddooyinka magaalada ugu qurux badan baa la mariyaa dharka dhar ugu qurux badan baa loo xidhaa marka la soo dhowaynayo dadka akhyaarta magaalada ayaa soo dhoweysay akhyaarta wufuudda ilaahay maalinka qiyaamaha
la leeyahay muttaqiinta ayagoo wafdiga ayaa soo xashrin doonaa markuu ilaahay leeyahay wafdiga ilaahay maxaa lagu soo dhaweyn baad u malaynaysaa wafdiga ilaahay allah inagu daro aamin dhahada ayaa u diyaar wafdiga ilaahay in lagu daro yawma nahshurul muttaqiina ila arrahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wurda waan ku aroorinayna baa ilaahay yiri jahannama kuwe mujrimiin kuwi ijraamka sameeyay kuwi dunuubta badnaa ee gaalada ahaa naarta jahannama ku aroorinayna baa ilaahay yiri aroorin xoolaha marka la aroorinayo darka lagu aroorinayo xaga dambe laga soo maraa mujrimiinta maadaama naar la geynayo malaa'iktu xaga dambe ka garaacaysa ama muttaqiinta maadaama janno iyo loo wado ilaahay rudihiisii wufuudu iyaka way ka hor iman doontaa baa layidhi xagga hore laga iman doonaa iyaka laa yaxzunuhum alfazacu alakbar وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر أرجع حوين يدعي دون با إلى هيري ذاتك مؤمنين متقين تاها أرجع حاسم السامين دون با إلى هيري ما أرجع حناي وتتلقاهم الملائكة ملائكة أيا كهر من دونت oo soo dhaweyni doonta oo istiqbaali doonta oo maxay ku oran doonaan hada yawmukum alladhi kuntum tu'adun maalinkan waa maalinkiinii aad ahaydeen kuwa loo yaboohay maalintii abaalmarinta weeyaan ilayna abaalmarinay yawma natwi as-samaa'a ka tayyi as-sijil lil-kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alayna إنا كنا فاعلين سمدا وانقاذنا با إلهي يري حاشد كتابك كنت على مركز خرستان سدا دول ركتان من رغينا با إلهي يري سمدا كما بدأنا أول خلق نعيده أبورك صدو مركز وراها كسو علين دونا صدوها آدم عليه السلام مركز إلا أبور درم قبن adiga markay hooyadaa ku dhashay dharmaad qabin sidii lagugu abuuray baad ku soo bixin doontaa wa'dan alayna ba ilaahay yiri ballankaana annaka ayaa qaadnay ba ilaahay yiri inna kunna faa'iliin ay qaadiriina ba ilaahay yiri bani aadanka sidoodii inaan ku soo celinaa awooda waan leenahay ba ilaahay yiri tiyako cagaagan oo qaaqaawan oo dhar la'aan oo dhar qabin inaan banka qiyaama soo joojino waan karnaa ba ilaahay yiri ballankaana annaka ayaa qaadnay waana buuxin doonaa baa ilaahay yidhi ballankaas maanta adduunyaad joogtaa laakiin baritool aakhiraad tegaysaa laakiin qof walba waxaad ka fikirtaa ilaahay maxaad la hortegaysaa waxaad adduunyada ka qaadato khayr iyo shar unba aakhira lagugu sarrifi doonaayo ogow ina alabraara la fii naciimin wa ina alfujaara la fii jaxiimin haddii adduunka dusheeda ilaahay aad ka baqdana naciim baad ku sugnaanaysaa haddii fujaarta dariiqay mareen aad martana waa jaxiim waxaad ku sugan tahay ogow labadaa qole midkaa tahay in adigu isqiyaas marka ilaahay innaka u baahan han ka cabsana ilaahay hanu soo noqonno han toobad keenno cafa allaahu camaa salaf wixii gafi naga dhacay horey inooga dhacayna ilaahay waa ghafaar وغفار ويان إلهي وغفور رحيم ودافد بدن نحريس بدن ويان يا رحمة دي سلقا قوسا إلهي الباب بدن نحريس دي سهن قرعنو ساعدها حدا بحبينكي وساعة الإجابة أيا إلهي الضمي سودا واقعو يرادا أيا توبت كانوا توبت دكا أقبلا أيا وحي ويدي سنة يا أنسيا أيا دم داف دوني ودم بيجي سدافا saacadaha haddaan kacnoon baahideena ilaahay u sheeganno ilaahay baahideenna waynoo buuxinayaa dunuubteennana ilaahay waa inaga dhaafayaa waraxmatii wasicat kulla shay naxariista ilaahay way ballaaran tahay ka quusan mayna ilaahay raxmadiisa camalkaaga hagaaji
laakiin camalkaaga ha tala saaran bay culimmadu ku leeyihiin iimaankaaga iyo taqwadaada iyo diintaada dhis laakiin diintaada haddana ha tala saarane waxaad tala saarataa ilaahay raxmaddiisa tala saaro qaaribuu wasadiduu camalka xidhiidhiya buu rasuulku yidhi sunnadana camalka ku toosiya lanna diin markay noqoto dariiqat almustafa baa diinta ilaahay loogu maraa dariiqad kaloo ilaahay loo marayaa ma jirto waclamuu ogaada baa nebigu yidhi midkiinna camalkiisa ku nabaadgali maaye qiila walaa anta adigana kolay noqotona baa nebiga lagu yidhi walaa ana anigana kolay noqoto baa nebigu yidhi ilaa ilaahay oo raxmaddiisa i huwiye mooyaane ilaahay raxmaddiisa ka quusan mayno aanu soo noqonno han toobadkeenno insha allah dhahada insha allah dhahada yaa u diyaaranu toobadkeenno natuub ila allah waxaa ka toobadkeenaynaa waa maxay khafladda macaasida way badatay maanta khafladdii way badatay waxaa kaloo ka toobadkeenaynaa diinta dadaalkeega ee aan ka fadhiisanina waa ka toobadkeenaynaa diinta dadaalkeega qof kastoo muslima diinta xil baa ka saaran rajulun duu himma yuxyi allaahu bihi اlumma haddaad himmad caaliya aad leedahay himmat اlculya oo aad leedahay anigu diin baan adduunyada ka qaadan diintana waan ka shaqayn karaa waan baran karaa waan ka shaqayn karaa waan ku dhaqmi karaa diinna adduunyada waan ka qaadan hadday himmadda adigu aad leedahay ilaahay tabaaraka wa tacaala himmadaada uu ku gaadhsiin uuna ku tusin diintana xil baa inaga saaran diinta xilka mas-uuliyadda diineed culummada keliya ma saarno qof kastoo muslim waa shahaadanaya diinta inuu ka shaqeeyo waa mas-uuliyad saaran weeyaan marka shaqada diintuna wasaa'il badan bay leedahay madrasad buu hayaa macallin diintii buu ka shaqaynayaa sheekh darsi buu ka maranayaa miskiid diintii buu ka shaqaynayaa masaajid buu khudbadda ka akhrinayaa diinta shaqadeedii uu hayaa waa mu'adin miskiid buu ka adimayaa waa daaci weeyaan ummaddu salaada ugu yeedhayaa jaamacad ilaahay dartii u baxay buu raacayaa waa daaciyo diinta shaqadeedii buu ka shaqaynayaa diinta shaqadeedu anwaacyo fara badan bay leedahay wasaa'ilu dacwa way fara badan tahay fanijtahid waa inaad daaci noqotay haddaad daaci noqon weydo adigaa lagu yeedhi xaqa haddaad ka shaqayni weydo baadilkaad ka shaqayni masjidka haddaad camiri weydo maqaayadda iyo suuqaad camiri haddaad islaamnimada u ficiltami weydo qabyaaladaad u ficiltami haddaad ummadda ilaahay xaggiisa ugu yeedhi weydo makhluuqa xaggiisaad ummadda ugu yeedhi meel dhexaad ma jirto meel dhexaad isma taagi karaysa ima waa inaad noqotaa daaci waa inaad noqotaa dadka ilaahay xaggiisa ugu yeedhaya haddaad adigu yeedhi weydo hadaa lagu yeedhi ku salliya rasuulka fadhiista dee fadhiista sidaa maaha fadhiista oo maskiid weeyaan meesha dee shaqada diinta kulligeen diyaar ma unahay insha allah yaa ahla baydhaba diyaar ma nahay insha allah khayr baa inaga muuqda khayrkaana waa nagu ogeyn 20 sano ka hor baan imid magaaladiina 20 sano ka hor 2001 markaasaa igu horeysa annagoo jamaaca sida maanta magaalada u camiran tahayna beriga uma camirnayn marka allaha amniga iyo arsaaqadaas iyo khayrka iyo maxabada diineed iyo masaajida ilaahay noo dhisay iyo culimada dadaalaysa allah inoo sii barakeeyade aamin dhahada insha allah inaan jamaacadada ilaahay dartii u baxaya inaad waqtigaad fasaxaysataan aad baxdaan oo raacdaan ayaa u diyaar dhammaanteen soo diyaar ma nihin caalim dambigeena allah dhaaf sheekhna ma yihi ardayna xataa ma yihi ardaynimadana waa ka sii hooseeya
جماعة التبليغ واسكت قانانو 6 صفات كي تولوين كلا وريقان 6 صفات علماء waxaa ku nidhaanaa sheekh inagu waxaatiin jumlad layaal baatiin cilmiga jumlad baad ku bixinaysaan laakiin jamaacada tabliiqna waa tafaariiq layaal ganacsataduna waa labada qaybood oo isku baahan yihiin soo ma hinde qolo jumlad ku keenta iyo qolo tafaariiq layaal marka anagu tafaariiq layaal baana culimo ma nihin xadiiska iyo aayada quraanka culimada ka maqlaa kolba tuulo la maraa kolba maqaaxil la marnaa dhalinyarada u sheegnaa marka dadaalka inaan gacmaha isku qabsano soo diyaar ma nihin dambigeena Allah dhaaf dambiga walidiinteena Allah dhaaf diinta Allah inoo macaaneeyo maralkeena Allah shaafiyo mawtaadkeena Allah u naxariisto amni iimaanka Allah inoo ziyaadiyo muslimiinta meel ay joogaan muwaafaqiin midnimada Allah siiyo dad badan oo walaalaheena xanuunsan oo duca dalbaye caafimaad sariic Allah siiyo qof walba kurbada haysatana halkay ka haysata Allah ka faydo kulankeena Allah inaga aqbalo ilaahay ha inaga aqbalo hadalka anigana ay soo dhaxmaray Allah miisaanka xasanaadka iyo saaro inkana xuduurka wanaagsan aad ka soo qayb gasheen miisaanka xasanaadka Allah inii saaro culamadeena ajillada walaalaheen ilaa maanta saanu iman asaasay noo hayaane iyakana cimrigooga aqligooga cilmigooga Allah barakeeyo shaqada ay hayaana Allah u sii aqbalo isma haday kare Allah ina hadeeyo wa sallallahu